mas-uuliyiinta maamulka degmada Awdiinle ayaa waxay ka cabanayaan arrimo la xiriira baahiyaha aasaasiga ah oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo waliba sidoo kale nadaafadda iyo fayadhowrka waxaana maamulka Koonfur Galbeed ka dalbadeen sidii gurmud loogu fidin lahaa dadka ku nool deegaankaasi wafdi halkaasi tagay ayaa waxa raacay isla markaasina la socday wariyaheena magaalada Baydhabo Sirjito wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay ee maanta gaaray deegaanka Awdiinle ee gobolka Baay waxaana si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan deegaanka Awdiinle ugu horeeya gudoomiyaha degmada Awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur waxayna booqasho kala duwan ay ku sameeyeen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaan ganacsiga deegaankaasi ugu horeyn waxa hadallo ku saabsan soo dhaweynta gudoomiyaha ka hadlay gudoomiyaha degmada Awdiinle Ibraahim Maxamed mayl raayis mahadnaqay bahada saxaafadda oo manasad geesamanada le manay arday deegaanka xaaladooda iyo arday ninka la koor galan ama nin indhayn marka saddexaad may mahad goona anjeediyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Xasan Aadan Nuur Xasan Ilkaas oo sidiisan ogsantiin muddo arday maalmo ka hor hamagaaway mudane madaxweyne Abdasiis Xasan Maxamed lafta gareen waa markii la hamagaaway isbuucan ku wareegana ka hor sida mana geesamanada le oo diiran oo saaneenka boogadi deegaanka Awdiinle maadaama mana deegaanka Awdiinle xaalado badan oo shashal gadiisan ka jiran sidii mana xaalada dhabta u ogaada ardayninka kooy taas mayl raaiskeenka mahadnagaan mudane gudoomiye hadhaw meelun adargaayt way buuha iskoolkii Awdiinle iyo Awdiinle mana baaha badan ka jirta oo ku ngata baahada waxbarashada iskoolku adargaas tira arday ka dhawaad sida mana arday macallimiinta ama maamulaha iskoolka horey baa gudbi kun arday ama la dhikadaas kun kaas arday oo mana qolku inta ka dhisan aan ka filanayn sadaadii bargaayta jeengudoon mana arday ta muuqdan arday ka jarta marka wayba kamida ta baahid on dhimaastirnayn maadaama mana arday maamulka gobolka ata waynoo la gudoomasay iskoolkii ka iyo mayrays ardaydii oo adii bargaayta xaaladda macallimiintii hadii ata mana arday dhiniga macallimiinta mashaaraadka filan ma haysadan tahsiilaad ma haysadan wayba walka baahan ardaydan oo tirada kun qof dirasa mutadawacmana ama iska waxa uu qabsay isilqaan ama arday walka barahayn wayba codsadaan mudane gudoomiye maadaama aad geeka tamartaneenka iskoolkii way fariingan oo deerjaase maamulka on saray madaxweynaha Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda arintun qosayta sida wasaaradda waxbarashada ma haysan mayrays macallimiintan mashaaraadka filan ma haysan ma haysan mana qalab oo mana arday sida ardayda mana arday walbadan aan baahanyin ma haysan mana arday baaha dheelitiran agabki oo mana arday walka barada fadi taas horta may baan malayn mar badan sheegnay geek maadaama aan boogati farsantin oo gudbi doonta way kala baaha ka jara deegaankan mudane gudoomiye cilmi la deegaankan bilaarji ki aad marti meel badan marti eelko 75 sano hata kore oday duugmiya kiyal hata waro biiki jara mayl raay waro gurta madabal kor deegaankan baahida mana lama maalin sid maalin madabal kor wasaaradda biyaha way ba mana arday cod sadaanayaan mana arday mayl raay maadaama maamulka gobolka mana niil rooga ini mana Awdiinle biyeed oo mana baahidis daboola ka jaran mudane gudoomiye may kala jaraa mana arday baahaya deegaankan jara dhinaca caafimaad isbitaal ma qabn MCJ mana arday yaki yaalan adiba ilan arag doonta mayl raay madaboolan baahada madaboolan may kala dhibaatay mudane gudoomiye shalay igeeka martaneen ahani degana nimankii nabadiidkii oo aran laawayaashii oo mana arday ummadda Soomaaliyeed gumaadeen deegaamada mana sida toosfiin oo kale ama foolfayd oo kale iyo deegaano kale lamid ah dadkii deegaayeen mana arday wali reena lan deganaado kormale ha guuriyeen ana Awdiinle iyo Berdaala maalintii lamaad oo dad barka ah ka qulqulaw ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Baay Xasan Aadan Nuur asiguna baaq u diray maamulka iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si ay u xaliyaan dhibaatada ka jirta deegaankaasi ma la raayso deegaanka Awdiinle baahiga ku jirta aragahayna andhoogano kahayna waxbarashada iskoolka meeragayna lix guri oo jingade oo gagaaban oo marneeda runtii kuleele dhan ayaal badan ka buuhan wasaaradda waxbarashada maanka baaganayni oo marneeda handarta agaasima James waahid socdaalka waxbarashada inni kormeerka suubida dhinay kalmay la raayso Awdiinle may iraabta la ku qaqay toosin
toosina runtii meel raayis nimankii khawaarijiin tahay ya marnay galaan ummataha ka jaayaan meel raayis haddii dhalinyartii marneedo reer toosin hay dagaalkan galaan masuun marna weedana deegaankan ku guuro aragayana nin sheega inay toosin ku soota runtii aragayadan foolhum reer toosin ma ka dhiirigeliyaan inay marna nimankaas soo walba makale inay marna iyo isku dagaalmaan dawladana garabsida Maxamed Deeqseer Jito RTN TV